sikila waaday jecel yihiin inuu xushmada ay hayaan ma malaysan karaysid qaarkood nimanka qaba xushmada uma hayaan xalliye waxaad u malaysaa in lagu dikrinayo laakiin online-ka waxa lagu tusinayaa in la necab yahay no la ima necba waxay rajaynayaan inay inaan maalmaha ka mid noqon lahaa ninkooda inaan maaragtay kuwaas way dareemayaan waxay leeyihin ninkan laba xaniyoodka this energy aan u baahanahay waxa kuu soo hadhay daayarada kale daalan iyo xalima kuuseeda iyo xalima calooleedii waxaasoo dhan online ka qaylqaylanaya wax kale ma aha ujeedku bedelin ujeedku waa in lagu sii isticmaalo ujeedku waa inaadan helin runta saxda ah iyo noloshaadu waxay isku bedeli lahayd it's not about me Nelson Mandela marka 27 sano la xirayay may ahayn Nelson Mandela inay necab yihiin but Nelson Mandela wuxuu bedelayay dadka noloshooda Mahatma Gandhi the same right all maxaa la dhihi jiray ishak American heroes black American heroes wuxuu bedelayay maxaa la dhihi jiray nolosha right dadka noloshooda aad bedelaysid baan la rabin ee adiga ma aha dhibku waa shaqada aad qabanayso just daacadaan soo noqono right now aniga nolosheeda meeshan taagan haday imaato shaqooyin iyo haday imaato maxaa la dhihi jiray vision iyo haday imaato direction iyo haday imaato aqoon iyo meel fiican baan joogaa nin kulayl haya ma yihi nin hawshan gaajo u geysay ma yihi you understand laakiin waxa taa ka weyna ii geeyay waxay tahay in laba xaniyood lahaan noloshan ay sidan sii ahaan karaynin ma daawan karayo maalin kasta nin Soomaaliya oo walaalkaya oo naag maxaa la dhihi jiray qolf madow dhex fadhida internet ka dhiibaya nin nafsadiisii aan laba shaati u gadin oo naag Mall of America geynaya like nin maxaa la dhihi jiray naag $3,000 naagu qaba ku biilaya laakiin naagtii ay 9 saac oo habeenimo ka imaanayso aroos nin dhalinyaro 22 jir 23 sano jira oo korinaya nin kale ciyaalkiisa hamba nin kalena cunaya ma fiirsan karayo that's the reason brother so inaad fahantid haddii aad aragtid anytime haddii aad aragtid in barnaamijkan maxaa la dhihi jiray haters uu yeelanayo in xalliye maxaa la dhihi jiray online-ka sidaad ka aragtid la necab yahay waxaasoo dhan wax kale maaha shaqadu waa in meeshaadii lagugu celiyo laakiin waan diidnay brother waan diidnay imagine noloshaadii oo kala daadsan baad naagu diraysaa lacag markaasay isku cadaynaysaa nin kale isu cadaynaysaa adiga isuma kala cadaynaysa brother way soo uroosaa ayada dhan imagine adoo aan hotel fiican cunto ka soo cunin baad iyada wadaysaa $100 baad ku soo bixinaysaa oo awta gaari baad shidaal ku shubanaysaa waxaan oo dhan at the end of the day sidii bisataal wala dhaqmay waxa lagu leeyahay fuck you de ma fiirsan karayo xilliyada adagna waxa loo baahan yahay dad istaaga waan kugu celinayaa xilliyada adag waxa loo baahan yahay dad istaaga adduunyadan taariikhda fiiri okay maxaa la dhihi jiray taariikhda oo dhan adduunyada fiiri taariikhda islaamka fiiri okay ma malaysan karaysid maxaa la dhihi jiray dadka ugu saamaynta badnaa waxay ahaayeen dad xilli adag soo kacay oo dhahay no you think nabi maxamed in loo garaacayay oo loo dilayay oo maxaa la dhihi jiray loo caynayay oo sixiroolo loogu tilmaamayay because of nabi maxamed baa la necbaa no dadkiisii baa saa ku samaynayay because of lama rabin diinta islaamku inay fido lama rabin wadada xaqa dadku inay qaataan kiisku waa isla midkii kaliya shaqadu qabanayay shaqadan qabanaya kala duwan okay fariintaas sida waxay tahay inaad noloshaada kor u qaadid inaad isbedeshid inaad maanta meesha taagan tahay aad ka kor uga kacdid oo self development aad bilowdid aad garatid qiimahaaga waxa lagu sheegay informationka lagu cabqariyo dhanna ay been tahay you understand so markasta oo aad nolol bedelayso way ka saamayn badan tahay okay way ka saamayn badan tahay marka aad iska caadiga iska tahay
also maxaa la dhihi jiray ciyaalka social media joogay daalan oo dhan in la wada jeclaado inay naagaha caabudaan qaar xataa waxaan arkay ku soo qoraya bostiyadooda iyo soo qoray waan ku jeclahay waan ku farxi doonaa waa nin waay waxa soo bosti garanaya just very simple okay markasta waa inaad fahan maantaan offline noqon karaa ilaa 20 sano ee soo socota nolosheeda wax ka qaldamayana malaha right ma aha inaan anigu haddaan live kan joojiyo ama barnaamijyadan aan joojiyo aan daayarnimo ku laabanayo no you understand shaqooyinkayga iyo hawlahayga iyo maxaa la dhihi jiray culaysyadayda kale iga badan barnaamijkan culays aniga aan nolosheeda kusoo siyaadsaday waaye waxayna iga tahay saafis iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg adeeg aan u samaynayo ragga Soomaalida waayo walaalkayaata kuguma fiirsan karo maanta dhan godkii aad ku dhacaysay so markastaad aragtid barnaamijkan in dagaal lagula jiro in aniga maxaa la dhihi jiray magacayga maadaama aan ahay hogaamiyihiini basically hogaamiyuhun baa la arkayaa dagaal lagula jiro ma aha in aniga dagaal laygula jiro ma aha in aniga maxaa la dhihi jiray waxa la rabo in aniga wax ay khuseeye ay tahay waxani waxay khusaysaa barnaamijkaagan waxani waxay khusaysaa noloshaada waxani waxay khusaysaa in adiga lagugu sii hayo meeshii shalay aan ka soo dhaqaaqnay meel dheer baan ka imaanay okay aniga culays iskor saaray si aan u badbaadiyo laba xaniyoodlayaasha maxaa la dhihi jiray Soomaaliyeed waayo haddii aadan hogaamin isa saarin waayo haddii aadan isa saarin mas-uuliyad okay wixiina aad og tahay waad ka aamustid that's why hogaamiyaal u jiraan that's why Nelson Mandela uu la dagaalamayay 27 sano uu maartay xabsiga ku cabay ma aha inuu noloshiisa noolaan kari waayay laakiin aniga noloshaydu way ka weyn tahay inaan iska noolaado inaan shaqaysto inaan lacag sameeyo inaan xirfadahayga iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg shaqooyinkayga kala duwan aan ku mashquulo way igala weynaatay aniga that's why aan u bilaabay shaqadan okay it's not about inaan xalliye la daawado rabo xalliye maxaa la dhihi jiray in la barto shut the fuck up brother shut 6 sano ka hor 7 sano ka hor international league daawanaya aniga okay one of the biggest international brands all over the world aan la shaqeeyay like I'm not someone or attention TikTok iyo in la barta iyo some like this xalliye was around brother you understand marka waa inay clear kuu noqoto baahi shakhsiyadeed iyo dan shakhsiyadeed oo in aniga lay bartay in aniga waxaas waa xanuunada baryahan dambe ay qabaan ilmaha internetka ku jira waxay meesha ku hayaana waa inay garoobyo soo boosti gareeyaan naagahana caabudaan you right laakiin inaan hogaamiyahaaga noqdo u soo bareero barnaamijkan diyaar u noqdo natiijo kasta oo ka imaata barnaamijkan inaan aqbalo oo aan mas'uul ka noqdo anaa diyaar u ah waxaan diyaar ugu ahayna waxaa waaye adiga darta it's not about me brother okay ma malaynaysaa in Nelson Mandela waayay meel uu ku noolaado guri cunto lacag nolol kuula naago mu waayin why 27 sano noloshiisa ka mid ah uu ugu horay xabsiga why guys like generation